Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Moonlight Academy and welcome to our today's lesson, which is lesson 21. In our today's lesson, we are going to learn conversation 21 out of 100. And as usual, when we are taking conversation, we have A and B. But before we start our today's lesson, let's go through our today's proverb, which says, birds of the same feathers flock together. Birds of the same feathers flock together. Birds of the same feathers flock together. The meaning of this proverb we are going to discuss at the end of our today's lesson. Keep the lesson till the end so that you will get the meaning of this proverb and as well you will understand the lesson. Ardayda qaaliga kusoo dhawaada Moonlight Academy. Kuna soo dhawaada casharkeena maanta oo ah casharka 21aad. Casharka maanta waxaan ku qaadan doonaa conversation 21 oo ah wadasheekeysigii 21aad. Sida caadadeenoo ahayd intaanan bilaabin casharka waxaan qaadan jirnay maahmaah. Maahmaahda maanta ayaa ah birds of the same feathers flock together. Birds of the same feathers flock together. Micnaha maahmaahdan waxaan ku qeexi doonaa dhammaadka casharka. La soco casharka bilow ilaa iyo dhammaad si aad u ogaatid micnaha maahmaahdan iyo si aad u fahantid casharka oo dhan. Without further talk, let's jump to our today's lesson. Are you a teacher or a student? Are you a teacher or a student? Are you a teacher? Bare miyaa tahay mise macallin miyaa tahay? Or mise a student arday ayaa tahay? Are you a teacher? Macallin miyaa tahay? Or mise a student arday miyaa tahay? Macallin waa teacher, arday waa student. Are you a teacher? Macallin miyaa tahay? Or mise a student arday ayaa tahay? I am neither a teacher nor a student. I am neither a teacher nor a student. I am aniga neither miihi a teacher macallin nor mise a student arday. I am aniga neither koona miihi a teacher macallin nor mise a student arday. What is your professional? What is your professional? What is your professional? Waa maxay xirfadaadu? Marba haddii aadan ahayn macallin mise arday, what is your professional? Waa maxay xirfadaadu? I am aniga waxaan ahay. Kadib wixii aad tahay ayaad raacinaysaa. Tusaale waxaad dhihi kartaa I am a businessman. I am a businessman. Aniga waxaan ahay ganacsade. Waad iska bedeli kartaa oo waxaad dhihi kartaa I am a doctor. I am a doctor. Aniga waxaan ahay doctor. Waad iska bedeli kartaa waxaad dhihi kartaa I am a waiter. I am a waiter. Waxaan ahay kabaryeeri. I am a waiter. Waxaan ahay kabaryeeri ayaan ahay. Mise haddii aad tahay dukaanle waxaad leedahay I am a shopkeeper. I am a shopkeeper. Waxaan ahay dukaanle. What do you sell? What do you sell? What do you sell? Maxaad iibisaa? Marba haddii aad tahay dukaanle maxaad iibisaa oo dadka ka iibisaa? I sell many different goods. I sell many different goods. I aniga sell waa iibin, many waa badan,
different waa kala duwan, goods waa badeeco. I aniga sell waxaan iibiyaa many different goods, badeecadooyin kala duwan ayaan iibiyaa. I sell many different goods, badeecadooyin kala duwan ayaan iibiyaa. What do you sell? maxaad iibisaa? I sell many different goods, waxaan iibiyaa badeecadooyin kala duwan. Is your business import and export? Is your business import and export? Business waa ganacsi, import waa soo dejin, and export waa dhoofin. Marka is your business ganacsigaaga import and export, soo dejin iyo dhoofin miya? Yani alaab miyaad ka keentaa dibadda, alaabna ma u qaadaa dibadda? Yani alaab ma soo gelisaa dalka, dalkana alaab ma ka qaadaa si la mid ah dibadda ma u dhoofisaa? Is your business import and export? Ganacsigaaga soo dejin iyo dhoofin miya? I import electronics from China. I import electronics from China. I aniga import waxaan soo dejiyaa mise soo geliyaa electronics, qalabka electronicska, from waxaana ka keenaa China. I import electronics from China. waxaan alaabta electronicada ka soo dejiyaa China. Yani alaab electronic ayaan ka keenaa dalka China. waxaan rajaynayaa casharka inaad fahantay. laakiin intaanan casharka dhammaynin aan dib ugu laabano maahmaahdeena maanta oo ahayd birds of the same feathers flock together. Birds of the same feathers flock together. Birds waa shimbiro, same waa isku mid, feathers waa baalal, flock together na waa isla duulid. Marka micnaha maahmaahdan ayaa ah shimbiraha isku baalka ah way isla duulaan. maahmaahdan mid u dhiganta ee luuqada Soomaaliga ayaa jirta, waxayna oranaysaa shimbirba shimbirkiisa ayuu la duulaa. marka shimbirba shimbirkiisa ayuu la duulaa English waxaa lagu yiraahdaa birds of the same feathers flock together. Before we close our lesson, let's just go through our today's lesson. Harmal aan dulmarno casharka. Are you a teacher or a student? Are you a teacher or a student? I am neither a teacher nor a student. I am neither a teacher nor a student. What is your professional? What is your professional? I am a businessman. I am a doctor. I am a waiter. I am a shopkeeper. What do you sell? What do you sell? I sell many different goods. I sell many different goods. Is your business import and export? Is your business import and export? I import electronics from China. I import electronics from China. This is the end of our today's lesson. I hope inaad fahantay casharka. casharka waxaa idin la socodsiinayay anigoo ah Cabdikariim Xasan. la soco casharkan casharka xiga. waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.